sharaf weyn noo maanta inaan ilaahay mahadiya inaan magaalada Kismaayo dib ugu soo laabanay iyadoo aan u aadnay shir ka dhacay magaalada Garowe oo ay ku lahaayeen madaxda dawladda federaalka iyo kuwa dawlad goboleedyadu waxaan rabaa marka hore inaan u mahad celiyo reer Puntland madaxweynaha Saciid Cabdullaahi Deni madaxweyne ku-xigeenkiisa guddoonka baarlamaanka shacabka iyo dhammaan dadka reer Puntland oo aan isleeyahay waxayna soo dhaweeyeen aad iyo aad qiimo iyo qaayo u leh iyadoo Ramadaan tahay haddana waxay qaateen culays badan oo aan isleeyahay waxay u qaateen iyadoo soo dhaweyntooda iyo mas'uuliyadda saareen shirkaas oo loo balansanaa iyadoo muddo hal sano ah aanu dhicin shirarkii dawladda federaalka iyo dawlad goboleedyadu ayaa waxaan soo jeedinay baaq ahaa bal in la wada hadlo oo la isu yimaado si looga tashado aayaha waddanka iyo meesha ay wax u socdaan taas markii aanu soo nimid iyadoo ay ka soo qayb galeen madaxweynaha iyo ra'iisul wasaaraha iyo madaxda dawlad goboleedyada iyo gudoomiyaha gobolka Banaadir oo goobjooga ka ahaa inaan is weydiino maxaa ajanda ah oo aan ka wada hadlaynaa waayo waxa ugu muhiimsan waxay ahayd warbal siyaasadda aan meel ku ogaano waxaa asala Soomaaliya maanta ma joogto xilli hal qof iyo hal fikri iyo hal aqli looga talin karayo waa waxa la isku doodoobayo la isku ururinayo hadda la hagaajinayo la yegleelayo sida daraaddeed Soomaaliya ma noqon karto meel qof aragtidii ama ra'yigiisa ay wax ku noqon karayso taas waxay timid inaan markaa ajanda shirki ku sameeyno ma ayna la imanin dawladda ajanda laakiin ajandaha shirka dhexdiisa aanu ka sameeynay iyadoo la isla wada kaashaday qodobo dhowr aan soo qaaday markaa oo ahayd koow in la helo gole ama xidhiidh ama madal waxaa doonta wadha siyaasadeed oo dawlad goboleedyada iyo dawladda federaalka ah fulin ahaan looga tashado la isku waraysto xaaladda waddanka looga tashado waayo xaaladda waddanku uu marayo haddaan mar walba la wada joogin oon la wada hadlin oo aan masiirka meel la isla dhigin oo aan la isla ogaanin oo aan kolba caqabadaha jira wada jir looga bixin qofna keligii wax ma qaban karay dawlad goboleedyaduna keligood wax ma qaban karaan dawladda federaalkiina keligood wax ma qaban kartaan waa dad isku duuban in la helo qodobka koowaad markaa wuxuu ahaa in la helo gole ka dhexeeya madaxda dawladda federaalka iyo kuwa dawlad goboleedyada oo mar walba lagaga tashado masiirka iyo siyaasadda taasoo aan wax u dhimaynin golihii amniga qaranka oo kaasi uu noqonayo mid isaga ka hoos shaqeeya sababtoo amniga qaranku waa wax u baahan farsamo yaqaan iyo khubaro oo amniga keliya ku kooban laakiin golo ka weyn oo masiirka ummadda iyo siyaasadda looga tashado kaasoo leeyahay in la helo magaciisa xubnaha kulamada iyo mas'uuliyaadka ay kala qaadanayaan arrinta labaad waxay ahayd arrinta galmudug oo ahayd mid aad iyo aad xasaasi u ah baryahan dambana hadalkeedu aad u socday oo sidii ahlu sunna iyo ay isugu darsameen maamulkii galmudug khilaaf badan oo xagga dawladda federaalka iyo siyaasiyiin iyo wax badan la sheegayo oo la tabanayay in iyadana aan ka salgaano oo goluhu intuu ka fadhiisto bal arrinta wax la iska weydiiyay arrinta galmudug laga gaaro xal dhab ah oo dadku ay ku wada qanacsan yihiin iyadoo maamulka galmudug uu diyaar u ahaa in arrintaasi la saleeyo la tixgeliyo heshiiskii ay ahlu sunna iyo maamulka galmudug dawlad goboleed galmudug ay ku gaareen Jabuuti oo dawladda federaalka waliba madaxweynuhu uu goobjoog ka ahaa ay leeyihiin war heshiiskii intii la ictiraafo galmudug dastuur bay leedahay dastuurkeeda aynu ku wada hadalno oo xuquuqda ay leedahay hal ogolaado taasaan isku daynay markaa inaan bal ku qancino dawladda iyo cidii kale wax tabanaysaba sidii arrintaas looga gudbi lahaa galmudugna iyadoo aan uga mahad celinaya xaaf culays badan oo uu soo maray iyo odaynimo uu muujiyey ama ha noqoto dagaalkii gaalkacyo ama ha noqoto arrinta ka taagan ahlu sunna iyo isu keenistooda oo tanaasulaad badan uu sameeyey in bal arrintaas laga gaadho go-aan qodobka labaad bay ahayd waxaa kaloo qodobka saddexaad ahaa xeerar loo gudbiyey baarlamaanka oo ay ka mid ahayd midka doorashooyinka iyo sharciga shidaalka biilasha in la soo celiyo oo aan ka wada hadalno si mas'uuliyad Soomaaliyeed waayo waa wax masiirkii la xiriira doorashadu ma aha mid qof uu go'aan ka gaari karo
maaha wax harqaan intuu qaftay oo dheer isku cabiro in siduu doona uu fulin karayo waxaan idhaha la soo celiyo aan ka tashanno ra'yiga aan leenahay aan ku daro waayo waxaan waa wax masiirka ummadda ah sharcigaa qoraya qodobo dastuurigaa qoraya in waxaan laga wada tashado waxaan nidhi labadaa biil ha la soo celiyo golahan aan samaynayna ha lagu soo celiyo aan ka wada tashanno ha noqdo kii doorashooyinka oo aan isleeyahay labadaa sharci markii shirkan loo soo baxayey ayay dowladdu intay la oroday oo golaha wasiirada la mariyey yaa baarlamaanka loo gudbiyey marka horeba aad garanaysa inay dalab meesha ku jirtay waxaa kaloo ka mid ahaa in la qeexo wada shaqaynta wasaaradaha federaalka ee dowladda iyo wasaaradaha dowlad goboleedyada oo la tixgeliyo sistamka federaalka ee dowladnimada soomaaliya ay ku shaqaynayso waayo ma aha isu duwayaal ee waa wasaarado state ka waxaysan oo ka tirsan iyaga iyo dowladda federaalka ah qaabka ay wasaaraduhu u wada shaqaynayaan waxaa kaloo ka mid ahaa sida loo qaybsanayo ama loo maamulayo deeqaha caalamku uu bixiyo oo ajandaha ku jirtay oo dowladda dhexe wixii soo gaara ma igu tiro iga tirba xaggey gaadhaysaa see loo qaybsanayaa see loo wadaagayaa wuxuu ahaa qodob isaguna qodobada ka mid ah waxaa ka mid ahaa dhammaystirta dastuurkii oo ah midka lagu kala hagmayo ayaa wuxuu noqday wax jeebka lagu wata oo nin waliba tafsiirku doono uu saaro oo dad dan kale ay say rabaan u wadaan iyadoon horay shirkii dastuurka halkan aan uga soo jeediyey ra'yi ah in loo helo dad madax bannaan oo aan siyaasaddan ku milmayn oo aqoon-yahan oo khubaro expertiisa ama aqoon u leh waxaan oo intii la siiyo waqti dastuurkan laga soo baaraandago la keeno kadibna shacabka loo bandhigo maamulada iyo golayaashooda baarlamaanka loo bandhigo mas-uuliyiintu ka doodo kabacdi ay noqoto wax dhaqangala ilaan waxani waa heshiiska shacabka uu ku wada noolaanayo ku wada shaqaynaya haddaan isaga la sixin wax badan baa ka halaabaya qodobka kale wuxuu ahaa maqaamka ay yeelanaysa caasimaddu waxaa in badan la soo celceliyaa caasimadda iyo gobolka banaadir hubaal waxaa ah muqdisho inay tahay caasimaddii jamhuuriyadda federaalka ee soomaaliya asal bay u ahayd haddaan la qeexin caasimadda maqaamkeeda oo si siyaasiya intii looga hadlo heshiis siyaasadeed iyo mid dastuuriya iyo golayaasha iyo kulli aan la marinin waxay mar walba ku jiraysaa mugdigaas dadka reer muqdishona waxaa ka maqnaanaya xuquuq badan oo ay dastuuriyan u leeyihiin maaha inay ku waayaan waa inay helaan xuquuqday leeyihiin waxaa ka mid ahayd markaa in la qeexo oo laga howlgalo caasimaddu maqaamka ay leedahay si ayna ku waayan xuquuqaha dastuuriga ay leeyihiin oo una u noqonin maayarkeedu nin la magacaabo oo markii la doonana la eryayo ee u noqoto maayar la doorto caasimad u taliya xuquuqday leedahay la yaqaano in la qeexo arrintaas waxaa kaloo ka mid ahaa la dagaalanka argagixisada oo ah qodob la iska iloobay oo dowladda soomaaliya aad moodda inay meel iska dhigtay sababtaa waxyaalahaan golihii amniga qaranka aada uga cagataalaynayna waxaa ka mid ahaa inayna jirin wixii amnigii laga wada shaqaynaya dowladda soomaaliya inay gabtay oo maanta dagaalka ay tahay qof walowba adiga iyo ciddaad la dagaalamaysa adeeg ku jirtaay orod meeshaa doonta ka soo dhac oo taas ay noqotay mid aan meella u jiri karayn waxaa kaloo ka mid ahaa qodob ahaa wadaxaajoodkii somalilan waxaa ku xidhan dhammaystirka dastuurka waxaa ku xidhan haykalka iyo mustaqbalka soomaaliya ay yeelanayso ma aha in somalilanna la yidhaahdo waan isku ciqaabanahay oo meel uga soconaysaan sidanaan nahay annana aan idhaahna dastuurkiiyo waxaanaa ku xidhan wax ka hadlaana uuna jirin